ولي ما أركتين أفر من القرآن جو كذا رزق فدية أو بلا معنى حق النص عن مارك سهل مركز صومالي محافل فريسي كذا ولي قد من شني لو مريكلو بلا معنى من الفريد مارك شن جالس ماركين ولي ماركين يا باكو مكان هاي باكو مثلا اسكسو وذا فديدا kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan marka hore waxaan halkan tacsiye aan uga dirayaa Allaha u naxariistee nin aad u xigmad badnaa oo dadka Soomaalida aad u dhiirigelin jiray oo hadda baraha bulshada ama baraha lagu daabacay ama lagu baahiyay in uu geeriyooday ninkaas magaciisa saxda ah ma aqaano laakiin waxaa loo yaqaanaa ama lagu naanaystaa Dulqarnayn magaalada Laascaanood baa muuqaaladiisii ugu horeeyay aan ku arkay Garowana runtii waan ku arkay iyadoo oo dad badan ay wax ka soo duubeen hadallo badan oo xigmadan ah waa laga diiwaan geliyay oo waa laga qoray ninkaas haddaba mid ka mid ah walaalaheena Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Engineer Mubarak Ibrahim ayaa xigmado badan iyo hadallo badan oo dhaxalgal ah oo ninkaasi uu ka tagay waxa uu ku soo koobay qormadan kooban oo aan doonayo inaan la wadaago walaalaha Soomaaliyeed iyagana inta aan ogeyn ama se aan horay ninkaasi u arag xigmadihiisa waa hagaag haddii aan bilowno ninkaasi waxa uu leeyahay gaari midigta laga wado wadadana midigto ka haysta adduunka meel laguma arag waxaan u fahmay kolay xigmadaasi Soomaaliya baabuurteeda waxaa laga wadaa dhinaca midigta steering midigle jidkana mar walba waxaan gaarigu ama darawalku u qaataa dhinaca midigta marka taas waxayna tusaysaa inuu ula jeedo inaan kaga duwanahay adduunyada kale iyo dunida kale baabuurtu inay bidixda tahay marka taasna aan kaga duwanahay wadamada qaar ma hubo adduunka oo dhan aan kaga duwanahay laakiin wadamada qaar xigmada labaad ee laga qoray waxay tahay in aad wax barataan waxna beerataan ayaad kaga bixi kartaan faqriga runtii weedhaasi waa weer cajiib ah oo runtii aad u baaxad weyn waxa weeyaan qofku inuu wax barto shaqeeyo ama uu wax la soo baxo ama beer ha noqoto ama wax soo saar kale ha noqotee ayaa mar walba faqriga iyo baahida lagaga baxaa taasna waa baraarujin wanaagsan oo runtii walaalkeen Allah u naxariistee oo dadka in badan oo kamid ah uu ku dhiirigelinay waxa kale oo uu ninkani iyadana uu ka hadlay arrin la yaab leh runtii ummadda Soomaaliyeedna hadda si weyn u haysata arrintaasi waxa weeyaan wuxuu yiri waana arrin nagu soo ama Soomaalida ku soo badatay intii hadda dawlad la'aanta ay ahayd ee maamulada aan qaangaarka ahayn ay ka dhismeen deegaanadooda waxa uu yiri gaaladu wax allaala wixii halaag ah oo Ilaahay looga go'ayay bay inoo keeneen bal hadalka u fiirsada hadda gaaladu wax allaala wixii halaag ah ee Ilaahay looga go'ayay bay inoo keeneen marka kelmadaasi kolay nin walba adigu si aad u macnayn karto u macnaysan karto iyo waxa u fahantay baan u daynayaa mid kale oo meel afar nin oo waaweyn inta ay meel fadhiistaan laadhuug ku ciyaaraan ma jirto arrintaasi waa arrin ku badan geyiga Soomaalida iyo dhulka Soomaalida runtiina dad badan oo Soomaalideena kamid ah waxa ay caado ka dhigteen intii ay wax soo saar iyo shaqo iyo mas'uuliyad dareemi lahaayeen inay wax badan ay maaragtay waqtigooda ku dhumiyaan wax maalayacni taasina wuxuu inoo diidan yahay in nagoo dad waaweyn oo Ilaahay caqli siiyay maskax siiyay oo wax garanaya aan nahay oo fikiraya in haddana aan ciyaar waqtiga ku lumino xigmada kale oo iyadana uu ninkaasi laga diiwaan geliyay waxa kamid ah haddaadan tukanaynin dambi bay leedahay oo salaada gabigeeda waa iska daysi laakiin laba faral baa midna ka tagaya midna aan qaatay macquul ma aha buu leeyahay taasina waxaa kale ula jeedaa baa umalay dadka salaadaha qaar tukada qaarna iska daaya caajisni bay ka tahay macaajisay ka tahay wahsi bay ka tahay
ma wax kale ka tahay kolley iyaga ilaahooda u deynayna taasna laakiin waa caado iyo dhaqanaan wanaagsanayn qofna islaamkaana aan ku wanaagsanayn halkana waxa uu leeyahay xawayaanka isma guursadaan ilaa condition ama shardi isku xidha xigmadaasi oo intaa ka badan in la sii furfuro baahan laakiin arinta ku xigta waxa uu leeyahay in tarantaadu ay badato wax soo saarkaaguna yaraado waa hoog iyo halaag waana sax markii la fiiriyo in tirada dadkaaga u bato waxay cunaanna aysan soo saaran oo aysan hayninba waa arrin dhibkeeda leh waana arrin aad moodid maanta Soomaalida inay ku socoto dad waaweyn oo diyaarado iyo maraakiib samayn kara oo haddana gidaar soo fadhiya lama arag runtiina arrintana waa arrin kale oo ka sii weyn oo ceeb nagu ah waxyaabaha aan ceebta ku leenahay inaga oo dad waaweyn dad wax bartay dad maaragtay ilaahay aqli siiyay aqoon leh in gidaarada la iska fadhiyo la iska sheekeeyo maqaayadaha lagu dhameeyo mataqaanaa shaaha iyo waqtiga lagu dilo waa arrin runtii u baahan ninkaasina waa waxyaabaha inta badan uu aad uga hadli jiray arrinta ugu dambaysa oo uu sheegay waxa uu yiri wali ma aragtay 4 midh oo quraanjo oo meel iska fadhida bilaa micno oo aan dhinacna u socon maxaa marka Soomaalida fariisiyay gidaarada maqaayadaha iyo meelaha macno la'aanta waa arrin u baahan isweydiin iyo waliba si gaar looga fakaro oo qof kasta uu dib isugu noqdo waqtigiisa iyo jadwalkiisa iyo timekiisa haddii adduunka oo dhan ku nacay adna aad isku tashan weyday double charge baa kugu dhacay runtii waxa weeyaan kolley dhagihii waansama baa waana maqla ninkaasi Soomaalida wax badan oo wanaagsan oo dardaaran ayuu uga tagay Allahna ha u naxariisto isagana jannadii firdawsaha ka waraabiyo in la dilay oo u dhintay baa isoo gaadhay ma sahubo balse waan ogaan doonaa haddii Alla idmo waqtiyada soo socda iyo saacadaha soo socda haddii ay beedmo aad baad mahadsantihiin intii ka faa'iideysatay wax ka korsatay wax ka fahantay waa idinka mahadcelinayaa haddaad nagu cusub tahay oo horay aadan ugu soo biirin barahayaga bulshada nagu soo biir channelka noo subscribe garee facebookana noo follow garee mahadsanidin